waxaa marqaati madoonta ah in kumanaan rag Soomaali ah ay ku wareersan yihiin sababta xaasaskooda u xanaaqaan kulanka sariirta kadib iyagoo sameeyay dadaal walba oo qofkaasi lagu qancinayo dhanka sariirta balse Jubanal Janal maanta ayay siriidin haysaa badanaa ragga iyo dumarka waxay aad isugu jecel yihiin oo ay isu soo dhawaasho xoogan ay dareemaan xilliga ay socoto kulanka macaan ee sariirta laakiin marka ay dhamaato oo daqiiqadeer ka soo wareegta waxaa dumarka ku sii siyaado xanaaq aan la aqoon baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dumarka ay xanaaqaan marka uu dhamaado kulanka macaan ee sariirta iyagoo ciil iyo xanaaq uu caloosha iyo qalbiga ka galo taas oo ninku naf ahaan isweydiyo sababta keenta waxaa la soo ogaaday in dumarka ay jecel yihiin in ay iyagu wax walba go'aan ka gaaraan xilliga ay dhamaanayso hawsha baashaalka iyo shaqada galmada balse lama weydiyo in kulankaasi la soo afmeerayo iyo in kale ee marbuu ninka si sahlan uu kala baxaa malabyowgiisa ee uu ku dul dhacaa ama uu dhinac dhacaa ragga kuma soo dhacdo inay ka hadlaan gabagabada shaqada galmada balse rabitaankooda markuu idlaado ilbiriqsiyo ayaa laga yaabaa inay ku sii dhex qaboojiyaan hawsha shaqada kadib si aan filasho lahayn ayay ku soo afmeeraan ciyaartii sariirta habeen walba dumarka galmada hela ama habeen dhaaf waxa ay saacad walba qalbiga iska dhahaan shaqada inta aan la gelin ka hor caawa ayaa si fiican u qancaysaa taas ayaana keenta in xanaaqa uu iska joogto noqdo maadaama awoodda ragga ay ku idlaato marka malabyowgu aamuso oo uu ninku u arko in uusan waxba tarayn haddaba nin yow aan xariifka ahayn kala tasho xabiibtaada bilowga iyo dhammaadka ciyaarta oo ha noqon mid ay shahwadiisu xukunto nabadgelyo